الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر دوادة برامج كم حاك عصب عيارها جارهان سوق اليبسجا مع أنت وكود بيش سبتمبر أي تهاي ساعدنا مكي تهاي حلقة جيسك أفريقيا كودا هبين نمو حرب دونا سوق اليبسجا كوحاب بدن أي سوق كجرا وإحنا كمية كوحد أرسنال أو داوع كم غيره لبيع عرتوي مهمة نينكليا بارتي أيها كم مكان كوحد أرسنال يسيدو كلام محمد اللين لبضع داوع يكون مكان أرسنال أيها كوكس بن بوسكاس إن عياريان أور هديسو حالين وحكي عياري kulankii la ciyaartay kooxda Aston Villa ciyaaryahanka lagu magacaabo Lokonga ayaa da'yar aan isku halay karin Arsenal ayaa doonaysa ciyaaryahan in badan Premier League ka ciyaaray waa ninka lagu magacaabo Douglas Luiz oo ciyaara kooxda Aston Villa Arsenal ayaa sheegay inay dalab ku gudbisay 20 milyan ah balse laga soo diiday balse Arsenal ayaa doonaysa inay dalab kale ku gudbiso oo 25 milyan gaaraya sidoo kale ciyaaryahanka ayaa isku dayay inuu ku cadaadiyo kooxdiisa inuu doonayo inuu kooxda Arsenal ku biiro حالي أرسنال جول كده لي وحال أركي عيارت مركي لما تيسا ولا شكل سنة عيارتو إذا أرسنال سيد عيارتو البرازيل كسو جيدي سكوت كيهين جابرييل مارتينيلي سيدو كاري جابرييل هيسوس سيدو كاري عياريان كا أيا كوحدي سكو عداديني إنو كتاقو لكن كوحدا أستون فيلا أيا دهيسا ميبينينو عياريان كان هشيس كيسد عيا سنة سوس عدا لو دكون سيد حلاتك بيش جون أستون فيلا وحكو kooxda Aston Villa ayaa ku qasban inay aqbasho dalabka Arsenal intuu suuqa iibsiga xirmin maadaama ciyaaryahankani sanad kadib uu si xura kaga tagi doono dhanka kale kooxda Chelsea ayaa la soo wareegtay ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang weli ma aysan ku dhawaaqin marka ciyaaryahanka ayaa ku soo wajahan London si uu tijaabo caafimaad ugu maro kooxda kubadda cagta Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang ayaa kooxda Chelsea la gaaray heshiis shakhsi ah sidoo kale labada kooxood Barcelona iyo Chelsea ayaa heshiis gaaray ciyaaryahankani ugu soo wareegay kooxda kubadda cagta Chelsea waxaana qayb ka noqon doona heshiiskaas ciyaaryahanka Marcos Alonso oo garabka bidix kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaaryahankan ayaa u wareegi doona dhanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Barcelona ayaa la wareegtay daafaca midig ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninka la yiraahdo Bellerin ayaa heshiiskii ugu jooga kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ka Arsenal hal sano kaliya balse waa la kansalay heshiiskaasi wuxuuna ku biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaaryahankan ayaa hal sano u seexay kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadoo la raaciyay sanad dheeraad ah haddii ciyaaryahanka qaab ciyaaradiisa fiicnaado inuu ku darsan karo sida lamid ah kooxda Arsenal ayaa heshiis ugu dartay in ciyaaryahankani haddii uu si fiican u ciyaaro ee kooxda Barcelona si iibiso in qayb ka mid ah lacagtaasi kooxda Arsenal ay lahaa doonto ciyaaryahanka qatar ah kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninka la yiraahdo Frenkie de Jong ayaa la sheegay inuu sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona maadaama ciyaaryahankani suuqa iibsiga intuu furnaa kooxo badan lala xiriirinayay ee ka mid tahay kooxda Man United Chelsea iyo kooxo kale sidoo kale maanta ugu dambeysay ee suuqa iibsiga ayaa la sheegay in ciyaaryahankani uu meel ugu socon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo u soo ciyaari doono xilciyaareedka hadda bilowday maanta waa maalinta ugu dambeysay suuqa iibsiga waxaan rabnaa in aad la socodsiino waxyaabihii ugu dambeeyay suuqa iibsiga ka soo kordhay inagoo caawan live soo geli doona anagoona daawanayna kulanka kooxda kubadda cagta Man United iyo Leicester City dhexmari doona sidoo kalena ay soo tabi doona suuqa iibsiga wararka ugu dambeeyay meesha ay marayaan ilaa iyo ka xirmayo caawa live ayaan soo galeynaa markay tahay saacada 10 fiidnimo markii soo gasho kooxda ciyaarta dhexmaraysa kooxda Man United iyo Leicester City ilaa ay suuqa iibsiga intuu ka xirmayo kooda waxaan idin la socodsiin doonaa ciyaartooyda u wareegi doonta naadiyada kala duwan ama heshiisyadooda la soo dhameystiri doona caawa وما سنتين داوشة المقال كفرنا لايك صار فيديو وسيدو كلا جنال subscribe صار